real way guuleysan kartaa marka ciyaartaana waxaan is leeyahay wax badan lama kala cuni doono wax badan lama kala qaadan doonaa is leeyahay laakiinse falfarda oo kale shirta raacid buu qabtay wuxuu yidhi we must win ana adkaano shirkiisa xalay arkayay soo twitterkiisa qoraya marka yani analyse-kaas guud markii la fiiriyo real shub ma oran karo waa real shanta laga soo adkaaday gamekii hore waxaan leeyahay waa real oo final joogta shaxdii soo bedeshay marka ciyaartu waxaan is leeyahay caawa xiiso badnaan doonta Muscab أنا ما صنتها مسعو أنا وساس وكل قبائل Real Madrid أكاديمية من أعمال كيرا وضد كل واحد عنيه أنسلوت وجبابي وستة تنشر تاريخ كستي هيستوري كستو وفي عنه وقصو قاعد كوحدان والله ما هالعلنية لكن سواء أنا مثلا هذا كان عين لبدله Real Madrid si guud way u baahan tahay oo taas waa xaqiiq marka hore wax xusay dhibaatada ugu weyn waxay ka wajahayso waa dhexda waana sidaad u sheegtay oo daada ka dabatay Luka Modric iyo bixidda uu baxay Toni Kroos ayaa dhibaato ka raacday iyo aan bedelkoodii keensan iyo Ancelotti oo marka hore yiri cirkaas geeyay oo isku filanahay dhibaatada halkaas ka timi yalkadeeda deemka caawa markii la fiiriyo horta classicada markii la fiiriyo historyga xifaaltan baa iska jira oo mararka qaybtood waxyaalo aan predictable ah baa ka dhaca oo team asleedahay waa fiican yahay baa laga badiyaa markaan Ancelotti waa inuu baxaa ninka ugu habboon aniga waxaan qabaa oo shaqada lala xiriirinayo inuu yahay macallinkii kooxda Liverpool ka tagay waagi dhaweyd oo reer Jarmal ninkaas oo khibrad badan leh spirit badan leh waxaana aad u soo saaray ciyaartoydana saaxiib la noqdo isku xirnaantooda iyo isku hayntooda ku fiican ayaan anigu ku saadaalin lahaa choice-keeda koowaad noqon lahaa instead of selecti aan qaadan lahaa Xavi Alonso oo weli aan aaminsanahay inuu junior yahay kulanti wacan daawadayaal iyo dhageystayaal kulan adag oo u xiiso leh ayaa jira caawa oo u dhaxeeya labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid oo xilli ciyaareedkan kulmay dhowr kulan haddana sidaas oo ay tahay ay kooxda Barcelona kulankii hore ay ku soo adkaatay 5 gool iyo 2 halka kulankii dambe ka sii horeeyana ay Barcelona adkaatay Mahad Salaad Cali ayaa ku jira khadka oo ah falanqeeye dhanka sportska ah mahad uu soo dhawow bal kulankan iyo waxa ka tiraahday bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum idaacadda raadiyo Garowe iyo daadiyaha aad u faanqaya ciyaaraha wariyaha daawayar Muscab yare intaas kadib aniga maanta haddii aan meelo badan wax ka eego Real Madrid iyo Barcelona sida aynu ognahayba waa kulamada loogu xiisaha badan yahay caalamka waa laba team oo aad u xifaaltama marka ay timaado kulamada ay isku wajahaan La Liga, La Liga, Champions League iyo Super Cup waa laba kooxood oo taageerayaashooda ay jecleen waa laba kooxood oo la yiraahdo waxa ay iska xirteen ama kootada La Liga u xiran yahay وهدي عن باش قاعدين ريال باقادة وينسك جران كذا وين ودوقنا هاي أنت تيام كلا قاعدين واحد كترسن مركا كلن كان مهندي سوته وحين وقت برشلونة صورنا رعتي وسوحوا بدأت حقيقة دي ومدين كل قدام برفورمانس ياد وفي عن كشرتي ويريحنا أفكار وعيارية لواندوسكي iyo Rafinha iyo Nicolas Jamal Malami Yamal ay noqdeen runtii khatar aad u badan gool fara badan dhaliyeen taasoo keentay in 10 game ugu dambeeyay ama dhowrkii 10 game ugu dambeeyay Barcelona intooda badan ay wada badisay galeer kulamo kooban halka Real markaan dhinaca ka eego oo sudac badan oo ku yimi oo Real shil yaqaanay aysan sanadka ahayn dhibaatooyin badan ay wajahay markii la eego oo ay ka mid yihiin ciyaartoydii dhexda muhiimka u ahayd oo Kroos iyo Modric oo midna dhac noqday 40kii dhaafay midna uu ka fariistay isagoo runtii performance fiican iyo dadka qaybo eedeynayaan ama u aaneynayaan aan leeyahay in dhexda Real mushkiladda ka haysata oo ragaas bedelkooda aan la keenin
ay dhibaato ka qabsatay ayaa keentay Real oo wareegyadii hore horyaalkan markuu bilaabmay dhibco badan iyadoo ku daadinaysa laakiin ma hadow marka la joogo ciyaarahan hadda ay Barcelona iyo Real Madrid ciyaarayaan Real Madrid soo dhib kuma aha in aysan haysan ciyaaryahan playmaker ama kubad sameeya marka Toni Kroos waxa uu maleysay in aad iyo aad u tabin sida aad sheegtay marka Real Madrid haddii ay sidan ku wajahdo Barcelona oo wadata Pedri oo kale iyo Frank de Jong iyo Olmo oo kubadoodu ay tahay kubad ku dhisan tahay weerar macalinkan hadda watan wax badan ka bedelay Hanflick uu wato oo isna hadda marka la fiiriyo kulankan uu noqon doono kulankiisii toddobaad oo final tagayo kulankiisii sideed oo final tagayo toddobaad final horena waxa la yiraahday lagama qaadin wax final ah Real Madrid playmaker ma u baahan tahay hadda Real Madrid si guud way u baahan tahay oo taas waa xaqiiq marka hore wax xusay dhibaatada ugu weyn waxa ka wajahayso waa dhexda waana sidaad u sheegtay oo daada ka dabatay Luka Modric iyo bixida u baxay Toni Kroos ayaa dhibaato ka raacday iyo aan bedelkooda keensan iyo Ancelotti oo marka hore yiri cirkaas geeyay oo isku filanahay dhibaatada halkaas ka timid yalkadeeda geemka caawa markii la fiiriyo horta classic-da markii la fiiriyo history-ga xifaaltan baa iska jira oo mararka qaybtood waxyaalo aan predictable ah baa ka dhaca oo team as leedahay waa fiican yahay baa laga badiyaa marka Real hal chance bay caawa haysataa chance-kan waxa weeye Champions League way ka hareen koobkan muhiim buu yahay oo La Liga waa looga horeeyaa Champions-kana waa hareen koobkan dalrayga oo finalka ah runtii waxa la oran karaa waa koobka ugu dhow inay ku guuleysan karaan marka la eego rajadooda koobka sanadkan taasoo marka waxay keentay inay iswaansadeen taasoo waxay keentay in macalinka Ancelotti uu shajaraad uu qabtay uu yiri kulankan waxaan rajaynayaa in kulankayaga noqon doono ciyaartooyda spirit badan sameyn doonaan aan soo noqon doono shaxdii wax ka bedelay oo iyada laftigeeda haddii saxda wax laga bedelo ciyaartu si un bay noqotaa ama kugu dumaya gurigu ama waxba ku fiicnaanaya marka waa bedelay uu leeyahay oo shaxdii hore Barcelona uu ku wajahay oo santa lagu dhifid gareeyo laga adkaaday isaga wax badan uu ka bedelay soo sheegayo oo marka la shaxdaas oo haddaan ka xusi karo ninkan Valverde oo kale oo dhexda uu ka ciyaaray hadda duu ka ciyaaray caawa Tchouaméni iyo Caballos iyo wax ciyaarsiinaya ninka Bellingham oo shaxdaas ma jirin oo ogtahay marka waa shax macquul ah isleeyahay oo Barcelona ku wajihi karo inkastoo ay adag tahay Barcelona inuu ka adkaado haddana finalka marka la yimaado Real finalada way ku fiican tahay baa la yiraahdaa aad ay ugu fiican tahay marka waxyaalo badan bay runtii Real oo final joogta iyo iyagoo guuldarrooyin badan soo arkay iyo koobka kaliya oo maanta ay fiirin karaan inkastoo ay La Liga wali rajo aan badnayn ka qabaan haddana koobka ugu dhow yahay dalrayga waxa ay oran karaan Real way guuleysan kartaa marka ciyaartana waxaan isleeyahay wax badan lama kala cuni doono wax badan lama kala qaadan doono isleeyahay laakiin Valverde oo kale shirjaraad buu qabtay wuxuu yiri we must win ana adkaano shirkiisa xalay arkay soo Twitterkiisa qoray marka yani analysis guud marka la fiiriyo Real shub ma oran karo waa Real shanta laga soo adkaaday gameka hore waxaan leeyahay waa Real oo final joogta shaxdii soo bedeshay marka ciyaartu waxaan isleeyahay waxay sababnaan doontaa wasaaw su'aasha ugu mudan hadda rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye marka la fiiriyo macalinkan cusub oo tacticada ahaan oo Barcelona wata hadda Hanflick waa macalin hadda waxa uu maleesaa cadaadis badan saaraya dhexda caawa sababtoo Real Madrid dhexdeedu aad iyo aad bay u liidataa dhexda marka la fiiriyo Real Madrid inuu ku soo bilaabo caawa oo kale maxay asaga u fiicnaan lahayd inuu ku soo bilaabo markaad fiirisay xidigaha miisaanka leh oo jooga yaa u fiicnaan lahaa oo Barcelona Real Madrid aniga shaxda oo hadda macallin Ancelotti sameeyay oo ah in Caballos Tchouaméni iyo Bellingham markii ugu horeysay wada dheelaya oo Modric baa ciyaarta wada dheelaya la saaray Tchouaméni oo kala uu maqnaa waxa kaloo san ciyaarta hore shanta ah ninkii Lorenzo dhexda ka dheelayay ninka Brazilianka oo guriga ciisada ay maqan yahay ترى بعاول كده اللي يعني كل يراهدو عيسى على صحيح علابا كريم برازيل ما علابا معها لاعب كريم برازيل أو لحظة كده لا أو قرية
okay kaasoo ka doorbiday ciyaarta Tchouaméni laakiin Trevor ku qoran yahay hadda magaciisa ayaa maqan ninka timaha la baxa okay dhib ma laha su'aal kale ayaa jirta iyaduna waxa waaye Barcelona hadda marka maxaa laga filan karaa caawa isleedahay oo ugu weyn inkastoo uu dhexda jaangareyn doono si u badan tahay uu sheegay in Olmo diyaar uu kulanka u yahay sidoo kale Bedrina uu kusoo bilaaban doono marba haddii labadaas ay dheelayaan Dijon waa kama maqna shaxda waa saddex nin oo caawa ku duuli doono oo uu kaga hortagi doono Real Madrid marka la fiiriyo kulankan dhexda cadays badan baa laga saarayaa maxay tahay tacticada uu ku badin karo caawa macallin Ancelotti muxuu isticmaali doonaa ma weerarku xoojin doonaa mise dhexda ayuu xoojin doonaa oo faraarq ku furi doonaa Barcelona tashkiilada haddii aan wax laga bedelin aan arkay waa 4-3-3 Real Madrid dhexdu waa Cabalos ninka la yiraahdo Bellingham iyo Tchouaméni iyo saddexda weerarka taqaanid oo Vini iyo Mbappe iyo Rodrigo marka waxaan moodaa tashkiilada weerar ah in Real Madrid ay soo sida gamekii hore oo kale afar dhex ciyaarisay markasta waxaan aaminsanahay ama waliba nin Real Madrid taageera markasta Barcelona ayaa dhexda ku fiican Barcelona si looga bartay markasta ay Real Madrid la ciyaarso shan bay dhexda ku ciyaartaa hataa afar ma ana sababta ay mar walba dhexda uga qabsato hataa Real Madrid hadday badiso inta badan Barcelona bal positioniska 65 bay keentaa oo iyada laga yaabaa inay ku fiicnaato way aad u adag tahay markaad historyga fiirisid Real Madrid inay ball positioniska Barcelona ka qabsato aad u yartahay laakiin waa laga yaabaa inay strong ahaan koox ahaan u dhisan awood ahaan marka kubadda haysato kubadda maamulaysa dhamaystir samaynaysa baa lagu yaqaanaa Real marka awood badan tahay laakiin mar walba Barcelona dhexdaan iyo kubaddan tiktakada waa falsafad moogtahay Barcelona caan ku tahay oo mar walba iyadu inay baasaska ku fiican tahay lana yiraahdo waa naadiga koowaad adduunka xagga baasaska ugu dambeyntii anagoo soo xirana macalinkan hadda cusub ee Ancelotti su'aasha ugu dambeysa Ancelotti waa macallin khibrad leh oo dhowr Champions League soo qaaday Real Madrid marka la fiiriyo 2000 iyo markay ku soo laabanayeen Champions League muddo ka maqnaayeen 13 markay qaadayeen oo uu soo qaaday sidaan inuu tababar ku xigeenuha mar kale waxa jirtay ayadana muhiim ahayd markii dambe hadda uu labada jeer oo kala qaaday Real Madrid 3 Champions League buu qaaday Carlo Ancelotti season kan bay ka warartay haddana waxa la leeyahay wala bedelaya ma la isdhihi karaa Xavi Alonso waa bedeli karaa macalinkan hadda khibrad badan ma laha Barif Kusan ayuu mar Real u qaaday Ambit laakiin waa player hore oo Real Madrid أنا ما صنتها بس أنا أساس وكل قواعد ريال مدريد أكاديمية من أعمال كيرا هذا كل واحد عنيه أنسلوت وجبابي وستة تنشر تاريخ كستي هيستوري كستي وفي عنه وقصة قاعدك واحدا والله ما هالعلنية لكن سواء أنا مثلا هذا كان اللي بدله وقت يسي وأنا بتشوفه ستة تنشر حتى هذا ركته مركب وكعي لأن هذا تاجي أنا waxaan ka baqayaa wax ciyaartooyda qaybtood mararka qaybtood xilliga hadda la joogo inuu isku khalkhaldi karaba marka maamulka Real Madrid wiiga hore inkastoo aysan shaacin oo si rasmi ah u shaacin la socdana warar ka soo baxay waxay sheegeen gameka Atlantico Bilbao haddii laga badiyo Ancelotti in la ciriyo shaqada laga raacdeynayo gamekii nasiib wanaag isaga xaggiisa waa ogtahay 90+ marka ciyaartu maraysay Valverde ayaa gool hal iyo eber قول أو سهية مركا كرسي اللي قناة أو هل كتاين بكفر لي أنسلوتي سنة كان واحد مودا سنة كذا ورث السيزون اللي كنت ريال مدريد أو أنا ما بقى من السنة بقى كوب كذا الرجع أو عاو هدي لقى عرب ترى هم لا ما حتى إن اللي أنا قاس الشامبيون هرا لو واحد ترى مركا أنسلوتي وأنا بحا منك أبوه حبونا أنا واحد قواء وشغل لا حريرنا inuu yahay macallinkii kooxda Liverpool ka tagay waagi dhaweyd oo reer Jarmal ninkaas oo khibrad badan leh spirit badan leh waxaana aad u soo saaray ciyaartooydana saaxiib la noqdo isku xirnaantooda iyo isku hayntooda ku fiican ayaan anigu ku saadaalin lahaa choice-keeda koowaad noqon lahaa instead of selecti aan qaadan lahaa Xavi Alonso oo aan weli aan aaminsanahay inuu junior yahay waa sida ugu wanaagsan oo hadda la isleeyahay tayraasha Real Madrid badankood waxay aaminsan yihiin in macalinka ugu haboon ee hadda Real Madrid xaaladan ka samatay bixin kara inuu yahay Jurgen Klopp macalinka hore ee kooxda Liverpool haddana jooga kooxda RB Leipzig iyo kooxaas uu maamulaha ka yahay
وما سنتهي ما هذا أيو كاسيها ودودا نقل قيب قلي ومهم وها ترتن كيوفا جامبيونز ليغها وريال مدريد كارتي ريال مدريد عقبدها هيستا كلن كان الكلاس كذا oo muhiim u ah oo hadana aysan joojiyeen in ay kulankan ka qayb galaan kadib markii shalay markii uu garsoore uu ku dhawaaqay in kooxdaas Real Madrid ay caruurtiisa dhibaato u sameeyso kadibna garsoorka ayaa ka soo aqbalay markii dambe balse Real Madrid wax lagu guuleystay ugu dambeyn in ay kulankan ay soo xaadiraan isla markaasina ay ciyaaraan ciyaartan muhiimka u ah Copa del Rey finalkiisa waa kulan muhiim ah oo muhiim u ah labada kooxoodba guud ahaan intaas waxa ku eeg falanqayntii ciyaarta caawa u dhaxaysa Real Madrid iyo Barcelona adigu maxaad ku saadaalin lahayd fikirkaaga nala wadaag